لو أنا لو برنامج أسوق في العاور يسول بيني هي ممكن تحدي مع هاي لا صوب هي لكن سيودا الله سؤال السداد ولا يرسل وحنا أنا أروح أحاول خمسة أضرب يرسل عاود أسوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada inta ku xiran channelkeena, inta ku xirnayna subscribe, like, gambaleelka dhagaha ka siiso. maanta waxaa marti noo ah, waxaan ku soo casuumnay walaasheen Xamda Xilwa. waxaa weeye fanaanadaaya. kusoo dhawow Xamda Xilwa. falcelintii, reactionkii, commentiyadii, ducadii aad ka soo bixiseen muuqaalkii kan ka horreeyey aad baa u mahadsantihiin. rajadaan qabno mid ka wanaagsan, mid ka qurux badan, mid muxuu ahaa yacni niyadda noo dejisay baadna siiseen duco wax walba. dee ma oran karo waxaa weeye aad baa u mahadsantihiin. waxaa weeye ma oran karo waxbaa naga hagarateen, waad noo wada sii dayseen qalbigiina, maankiina. waxaa weeye waad noo wada furteen intii commentiga kasoo bixisay oo noo duceysay. ilaahay meel wanaagsan ha ka siiyo. ilaahay meel wanaagsan ha ka siiyo. waxaan dul marayaa commentiyadii ma wada akhrin karo, dadku ma wada mahadcelin karo. waxaan dul marayaa waxaa weeye 2 qof ilaa 1 qof oo commentiyada ka mid ah baan dul marayaa. 2 qof, 3 qof, 4 qof. inta kalena qalbigaan ku hayaa, waayo sida kuwa u arkay oo kale aan u aragnay baa iyagana u aragnay. marka waxaa weeye waxaan ku bilaabayaa Amaal Cabdullaahi. walaashiday qaali Amaal Cabdullaahi walaashay macaan aad baa u mahadsan tahay. waxay tiri maasha allah, walaalkay iyo dumaashiday qaali allah idin xifdiyo, ubadkana rabbi baa baxshee. waxaa ha u joojinina horay uga socda guulaysta. aad baa u mahadsan tahay Amaal Cabdullaahi Faarax. aad baa u mahadsan tahay. mid iyo muxuu ahaa 2 iyo 3 baan kasii wadaynaa. Esther Gurey Caduur. Esther Gurey Caduur aad baa u mahadsan tahay. iyadana waxay tiri assalaamu calaykum walaalkay iyo walaashay. horta kelmaddaas markaan maqlay meel baa ay xanuuntay, waana murugooday. waxay tiri qofku wuxuu doono ku hadlo maaha, inuu wuxuu doono ku hadlo maaha. wiilkaas ama gabadhaas waxaa soo qoray. waxaan leeyahay haddaa intaad guursatay degdeg ilaahay kuu siiyey awlaad, hamoodin waxaad gacanta ku haysid oo adigu la soo baxday. beenteen ma aha. commentiga wuu sii socdaa. waxay tiri ilaahay u toobadkeen 3 berina soon. walaalkay iyo walaashay waxaan leeyahay jacaylku waa xaasid badan yahay. dadka xaasidka ah jacaylkiina yay wax u dhimin. dad baa jira 10 sano isqaba oo kadib alla siiyo awlaaddii ilaahay idiin qoray waa yimaysaa. awlaaddii ilaahay idiin qoray waa yimaysaa. beentaa maaha. ilaahay wuxuu qoray lama waayo. aad baa u mahadsan tahay. waxay tiri iimaankiina waa ku helaysaan. ilaahay waxaan ka baryayaa in awlaad khayr qaba oo baari ah ilaahay idin siiyo. gabadha ugu horeysana igu magac dara, igu sameeya. aad baa u mahadsan tahay walaashay Esther Gurey Caduur. aad baa u mahadsan tahay. allah ku sharfo. waxaa weeye waa kugu sameynaynaa gabadha ugu horeysana insha allah. aad baa u mahadsan tahay. xayiro media waxay tiri malaha waa asxaabtaadii hore oo reer Burco ahayd. waxay tiri Layla Ubax waxaan soo xasuustay markii Burco joognay oo xaafadda naga soo horjeeda ay joogi jirtay. runtii si fiican ayaan u aqaan. waxaan leeyahay dadka xumaanta ka shaqeeya waxba dhigta ha u taagina. walaashay Layla Ubax waxaan leeyahay Burco waa lagaaga xiisay miyaad soo booqanayn. from France joogtaa. waa gobolkaygii. xayira waa u salaam. waxaan ku wada xayira walaashay adiguna France ka soo tag oo Burco imo Laylana waxay ka tagaysaa insha allah markaad timaadid waa inay markaad timaadid insha allah. qofkii ugu dambeeyey walaashay qaaliya Saciida Taabid. talo fadhiga ma ka kacaa? may Saciida Taabid fadhiga iyo madaxay noo saaran tahay. Saciida Taabid aad baa u mahadsan tahay. walaashay macaan aad baan ku jecelahay. Saciida Taabid garabkayaga aad baan ku jecelahay. ilaahay wax ku dhiba kuma tuso. Saciida Taabid ku darsado waxay joogtaa dalka UK magaalada London. aad baan kugu mahadcelinayaa Saciida Taabid. waxay tiri ubadka allah baxsha abooda Canada aan Layla Ubax noolaada isku waara abidkiina. dadka warka xun dheg ha u dhiginina, horay u socda. isku waara abidkiin. dadka warka xunna dheg ha u dhiginina, horay u socda. thank you walaashay qaaliya. aad baa u mahadsan tahay.
intaasay noo joogaysaa commentiyada halkaasay noo joogayaan marka horaan kugu sheegay dadka ma wada gaarno aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin aad baanu idin jecelaysaan noo jeceshin si ka daran ma idin jecel intaas soo qaatay saan qalbiga ugu hayo baan intii aan ka tegayna qalbiga ugu hayaa maadaama aan ka wada gaarin jimco wanaagsan waxaa weeye maalin khayr leh kusoo dhawaada waxaa marti noo ah aan kusoo noqono barnaamijkeenii xamda xilwa oo barnaamijka noo wada xamda yar walaashay labadii waa mahadsantihiin soo dhaweysa aad baa u faraxsan masha allah aad baa idin jecel dhammaantiisa ay jeceshin waa idin jecela noolaada waxaad hela uga feer gabakal hela kasta jecesha ilaahay misa aamin walaashay farxad ku noolaada qofka bulaanka qalbigiisa hadduu fiican wax kastoo jecel insha allah walaashay adiguna qof aad u qalbi wanaagsan baa thank you kasta ilaahay misa waa idin gacan wala qalbigeeda daacad baa idin jecelahay maanta walaa waa iga yaabisay maanta maxaa noo haysaa maanta dhegta ku soo qabanay adigoo dhan iska dhaqanaya dhegta ku soo qabanay waxaa lagaa rabaa waxaad sida halka ku gudubtay waxaa soo martay asxaabtaada waxba inaad waxa ku kaga qoslisid maanta waa ku soo kaxay waa iga tiinay dhib ma laakiin asxaabteena oo dhan maanta waxa idin hayaa sheeko oo qosol miran ah labadiinoo dhan waa qoslaysaan dee caadi maaha walaba sheekada wallah waa yaabta aniga waqtigeyga horta imika waa la weynaa intaan laakiin marka waa waagi yaraa xasuusatay wallahi bilo ad iftaa oo cido jooga iska iyo marxaladahaas waayaa gashay waayaa galay hal xaba qac nooga sii horta ani waagi hore waxa joogta waan kusoo karay maasha allah aad baa u jeclaa aniga oo Qoryaale oo degmada oo gobolka togdheer bay ka tirsantaa Qoryaale qofkan garanayn waxa weeye gobolka togdheer bay hoos qofkii garanay oo garanaya togdheerna waa Burco marka tuulooyinka oo ka jira meelahaas waxaa jira inag maanta dhaqankeena waxaa jira aroosyo oo baadiye laga dhigto oo dadku inta aan fanaan ahayn oo meelaha oo heesin hore la dhegeysto laga soo jirta marka waagaas wiilal iyo gabdho baa habeen isku raacnay meel oo baadiye oo buuro inta la koro baa la aadaya qofku walbuu ka soo heesaya habeen baa waa israacnay wiilal iyo gabdho markaas waxaa dhacday gabadh wiil baa arooska markii hore geeyay waa laga soo daray marka qofkii walba maaragtaa markay xilli dambe ay noqoto arooska laga kala diray qof walba qof baa kaxeeya oo gabadhka wiil baa soo shukaansanay soo kaxaynaya baa wiil baa soo kaxeeya yani laba la isku raacay markii aroosku dhamaado halka laba markii loo socdana horaa la isku balansanaya waa la sii dhaweynaya laba la isku raacay wiil baa ay balansaday wax kale kuma garataan way kaxeeyay way soo kaxeeyay wadada markii jidka lama hayno wuu jirida wiilasha sirra waa iska taqaana waa iska qashqashaad badan gabdhaha oo ay ku ciyaaraan iska jecelin kibaa wiilkii uu soo kaxeeyay wuxuu dhahay caawa ilaa waa ku soo kaxeeyay soo dhab ku lugaysiinaya maxaa isla haysa caawa in oo isku mirnaadaya waxa kale oo garanaysan ninkii uu soo kaxeeyay jidka mireed wax isla daa gabar baa aad mustaqbalkaaga ninkan kaaga ciyaarayay waxaa ku soo xalkeen aad ninkan aan guriga ku aadin ninkan ay iskaga dhigtay maskaxda la ciyaar baan alxamdulillah mustaqbalka baa caadi oo isbaaninaya aad wax walba diyaar asxaabta والله بلا قصد بقى دماغ waxa wiilkii wuxuu ugu ridikeen akun walaalo caadi iska waxaas aad ma xir baa wakaad isaga ma yartaan aniga inta saaf musi afkaaga jira caawa sankay dhigaa waa ka keenay ma baanti nacsiin yaa gimiisa dhanba raamadaas hay wala caadi uu kacsan baa uu leeyahay caawino kala ma arkin uu ka soo maay waa is xayisiinaya inuu caawino kala gudaan inta bishan baa uu fiican isbaa soo waday saxaari wiilaa maxaa buur baa marna buurta surmada suuqlada maxaa ma in raaxaysan mirti toga tagay burcuud saabiyo iska gadinina isku miirna وبالسوق دمشق ويكان بتدو طلع مو بحافظ ولا الكلاي سوي كل يسوي وبضع عند ولا هبله ما بلاص يبدا ويتخطى ورا عايز كده انه ده ما هذا يصير شغل هذا او شيء سنه هي اللي تكون عصينه او اللي كسي ودينها تبقي بس يرحج يبرعودي حجي برعود بس محمد برعود ده اصحاب يرفع مع برعود وتبقى مركوت عيد نيستا معانا waxa way ciid biyaha ay daadka iyo reebaha oo xalan ciid waxa way jooradiga ila waa nin oo program ah soo fiican wada soo leeyahay marka tixdeeni ma adeega haydo soo laakiin
سيودا الله الأسبوع السداد ولا يرسل وحنا أنا روح أحاول خلني ساعة ضمير ورسل عاود أشوف ضويشك على waxaan doosh ka xasan waxa ma nacdo waxa soo warqin wala waxay ku ka jirtay kan da waxa xawaa waxa shacawd oramahay ma ku dhacay iska waa aniga waxaan soo warqisay iyada wali xalaad oo ku soo dhacday iyada dig baa soo ila caawuri leeyahay soo warqin oramahay waa ku waa iska xariso su'aalka igu si madax muslim ka bixisayo saari baa intaanti sheekada yaa markii dambe gurigaad waxa la isbreed ma guriga ka soo bixi oo lagu jiro dama ku soo qaylo tuulis marka kuula soo baxay uga baxsataad uga carartay meesha dadwaa la kala meesha waxa weeye dadka baa joogay iyadoo waxa la marka gaabay dadka aragtay miyaad qaylisay mise ayar baad uga baxday waa ismuqshii dadkii waxa hayda xulid qoran soo aniga waa la siga shactiro laga sayid markii la soo lagu soo ururay siibadiisa xirtay siga lagu soo marka dad qaylinta dadkiisa maqashiyay waa maxay wow ana intaas maqashay waray baa qayliyay adeegyadaadi oo ku tooran dadkii oo dhan baa wala qosol baa ka dhamaaday ma kaliya la shactiraysan كانت أقول كاس عاد بوصلها ما شاء الله وصلت لي دمي ولالكي أو ولالكي حطي أسكرني أنا كانت والله دايم كذا اللي لو habeenka على مدامات ولا قصدي habeenka waxa oranaya wiilka asxaabtuna inuu qosli doon wiilka waxa oranaya habeenka candufta dib loo waxa guriga iska tag iskaga tuuro aad baa maasantay alxamdulillah wala qosay waxa هاوي تاريخ بدن ما دمين كرنا تاريخ قرية على كاسو مري هذا بلون هذا مخرب بيجاريس أنا قبل يدرتو يقول بلونين لا لا تاريخ يقول ريتي هاي ليلة محبر على كاسو مري أنا ما نقول شيء كيس نينكي أيامتي بريفت كات كتشفتي نينكي اللي قبل كتشري أنا أو الحمد لله قرنا يسا الحمد لله حوي أصحاب تذكرير برعانا هاين ولا شيء غير محايا وإسلا فهمينا marka ila oo nuxnin la yiraahdo oo buura de loo aqal fiilo dhan oo la isku daray weeye marka adigu ninku mutacallim weeye waxa weeyaan mutacallim weeye laakiin uu xoogaa uu waashay nerfal uu waashay adigu gabar la'aan waxyaabo badan buu maxay ahayd bartay wax badan buu bartay quraanka kun jeer buu dhameeyay dugsiyo dhigi jiray maxay iskuuliyo dhigi jiray sidoo u dhigi jiray buu ninkii ilba adu ku dhacday uu qafiifay uu waashay marba maalin soo u dhigayo maxay ahayd dugsiyada buu sitaarada markay u kala xidhan tahay dadka oo gabdhaha de looga xidho sheekhyada markay u dhigayaan gabdhaha quraanka oo ay madrasada u furaan waxa bahal sitaarad la yiraahdo kala qof kasta Soomaaliya uu garanaya sitaarad la yiraahdo baa u kala dhaxaysa sheekha iyo wada maxay ahayd macalinka iyo gabdhaha ardayda ah marka isagoo intuu isu joogo lagu kacaya murbu iska soo dhigaya gabdhihii uu galaya si 10 weys leeyahay marka ilaahay waxaan ka barayaa horta qofka bilaadanka oo qof walba xanuunsan ilaahay xanuunka ka kor qaado laakiin maalmaha kamida ayaa waxaan dhigan jiray bareefad ninkaas markuu waashana wuxuu ku waashay waxa leeyahay wuxuuna cabay tahliil awr loo tufay awr qooqan awr qooq waa miya leeyahay marka wiilkii dumarkii burca joogay oo dhan buu ku waashay meel kasta waa joogto meel kasta hadii la geeyo hadii lagu kacsan yahay naag haduu arko macalta xaamilada ama dhaafayo maxay ahayd maalmaha kamid ah ana bareefadkii baan galabkii ardayda ila dhiganaysay ana xoogaa ka soo yareeyay wiil iyo gabar wiil gacan yaro ah macalinka computerka ayaa joogay iyo gabar practical sameynaysa marka insaan waan tigay saadaan u galay macallinkii soo jeedkaas oo kale u fadhiya waan galay computerkii gabadhooda waday waan dul istaagay markaan dul istaagay cabaar daawada waxay sameynaysaa baan kuraastii oo saa u safan oo albaabka ka soo jeeda oo saa u safan baan saa ugu fikirayo waxaan islaa talo 10 ma ugu horeysaa kuraasta waa taamarana xagga ugu horeysa ma fadhiisata mise halka dhexe kala sharaxanaya adeegyadii ayuba waxaan arkay in aanu u eego maanta weliga show waa mid cusub oo la qoray anigoon ogeyn subaxnimaad kamaan dhiga jiray marka galabkii waa dhiga jiray subaxiina ardayda qayb baa gashay marka subaxii yimi waa la qoray ardayda galabnimadkii baa lagu daray deetana waxaan arkay kiyo soo galay anoo saa kuraastii ugu sii jeeda oo kadinkii ka soo galay saasaan u eegay ina aanu oo de halkan taagan weey sidii ugu eegaya waan ka yaabay
bismillah saasaan u eegay waa maxay aniga dhanba waxaan ku tiniya celin ninkaas gabdhaha waxaan ku saas buu ku riday tiniya celin gebigayga si kala noqday hayaay waa qayl anoo bartaydii taagan waa naxdin darteed oo dhaqaaq way qaylan qabsaday hayaay iga soo gaadhay ninka wuu yaabayay saas ii eegaya maxay gabadhii iyo wiilkiina saas ii eegaya marra wiilkii eegay marra aniga eegay sasma ka qabtay hayaay baay ilaw nuuxay waa wareey macallino iga soo gaadhay maanta waad badan balaadi aqalka leekay baa kugu fadhiisanaysa waxaan ku idhi saan u qaylinaya macallinkii soo orda wiilkii wuu saa eegay anna saas u eegay wiilkii wuu garanaya ilaa hayaa inaa nuuxey bale isna inaa nuux uu garanaya macallinkii inaanu wiilkan ahayna uu garanaya macallinkii dee alkaan isleeya wuu kaa naxaya ninkii wuu eriyaya wuu qosol qabsaday siduu qoslayay kadinkii wuu ku soocay ninkii kalena wuu yaabo wuu naxay oo isaga laftirkiisa qayladaydii baa shoog ku riday wuu yaabay martii uu ku qalala marka wallahi ina au nuux iyo burco waxbuu namarkiyey wallahi billahi ilaahay caafimaad siiyo ilaahay caafimaad siiyo waawey intuu muxuu ahaa dhibta u geystayna gabdhuhu dhibta u geystayna ilaahay waxaa weeye dembigooda ha u dhaafo waxaa weeye qof xanuunsan weeye qofka markuu xanuunsan yahay waxaa la dhahaa qalam baa la dhahaa macnaa qalinka waa laga dulqaada ilaahay ha xafiino nuux laba taariikho waxaa idin soo martay la yaab leh in au nuuxna xisaabta ku darsado in au nuux gabadha markuu ku habsado naasku ka qaniini jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaa la sameeyey mataqaana roob baa da-ayay wuxuu sameeyey roob baa da-ayay marka suuq weyn oo burca leedahay bay gabadhu naag waxay ahayd balaaye ah oo lacagley ah bahallayla calaawiya iska soo jartay oo waxaan ku wuri say u wadatay bay suuqa kusoo agbaakimatay salad weyn bay sidatay say salad weyn u sidatay bay soo degtay gaariga biyaha ka hooseeya iyo dhooqadii aad u dacas bay xidhan tahay saasay u faydatay saladii baa halkan ku qaadatay gaarigii bay xidhan tahay markay saa gaarigii u xidhay in aunu halkan ka soo guuray ayadii iyo saladii intuu samadaa ka keenay uu dhulkii roob iyo dhiiqa saa u fadhiday waac ku siiyey naag buurana walbaqsi wuu ku fadhiistay dambu ku dul yidhi deetana markuu dam ku dul yidhi baa waxaa laysiiyey ka qabta deetana naas buu ka qaniinay deetana way qaylisa wariga qabta naas buu ka qaniinay kor baa loo qaaday naaskii uu qaniinsan yahay markaasay tiri war iska daaye iyadaa rabtoomya damaya qofkii naasku waa halbowya naaskii markuu ka xanuuno maxay ahayde oo uu rujiyo qofkii de waad xanuunsanaysaa horta qof bilaadan hataa dee gabadhii halkii ay maxay ahayde waxay samaysay iska daayo war iska daayo halkii waa go' la iska saaro la iska daayo halkii baa la iskaga daayo waxaa ka dhacay meesha ku dhacday halkii waxaan ku idhi go'yaal baa loo saaro waa la iska daayay faraha laga qaaday markii dambe iskiisa iga tegi gabadhii oo naaskiina dee dhaawacay halkii kala taala halkii oo waxaan ku ambalaas loo yeelay dhakhtarka loola cararay marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nuuxlaaga caafiyo xanuunka ahaa kolle dhowr sano kugu dambaysa adoo hadda 5 sano burcamaada tegin 4 sano kolle laga yaabaa inuu caafimaaday ilaahay baa nagu aad baa umahadsantihiin waxaa weeye maanta barnaamijyadan soo jeedinay waa ka hesheen qosol iyo xaraaba anigaaba qoslayba xamdi burca marka ka sheekeysay iyo tugi aniga waa sheekeynaya muuqaalka xiga waa inoo ballan ah like share subscribe kuna wax weyn maaha maxaa laga siinayaa subscribe-ka si soolka nagala xistiyo dahakinada Layla Ubax subscribe walaashii kala baxayla waxa weeye subscribe-ka waxa weeye wax oo dhan waa dhankiina lamaanihii like-ta noo saaray qadar yar muftimaal iyo dimashidii qaaliga aad bay wixii iska abulaayo comment naga soo bixiyo oo dhan xamdi baa afhayeen u ah aad bay u mahadsan yihiin lamaanayaashana aad baan salaameynaa aad baa idin jecelnahay waa inoo barnaamijka xiga yaanu aroosada ma la guursanayaa wallah arooskaaga waxaa kala kicinaynaa anoo rabo inaan ka baxo barnaamijka dhan aan soo xiro bay tiri yaano aroosada iska abula meel baa iska dhagla moogtaa
xamda waa wixii doontaan waxa filay inaad tiraahdo barnaamij loogu soo celiyo haddaad u haystaan commentiga noogu soo qora xamda haddaad u haystaan tirahdaan barnaamijka laga soo duuba commentiga noogu reeba xamda xilwa la yiraahdaa waxay ka tirsantay kooxda Mawraaba aad baa u mahadsantahay bye bye barnaamijkan barnaamij xiga weeye